meydadka labadan ruux oo looga shakisan yahay in ay ka tirsanaayeen dagaalamayaasha al-shabaab ayaa maanta saraakiisha laamaha amniga dowladda Soomaaliya waxa ay ugu soo bandhigeen magaalada Muqdisho. Dagaalyahanadan ayaa lagu dilay weerar ka dhacay isgoyska Saybiyaano oo ku dhex maray iyaga iyo ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya oo ku sugnaa bar kontaroola oo ku taalla isgoyskaasi. Saraakiisha laamaha amniga dowladda ayaa sidoo kale warbaahinta u soo bandhigay hub ay sheegeen in ay wateen dagaalyahanadan ay maanta soo bandhigeen. iskorimaadka ka dhacay isgoyska Saybiyaano ee u dhaxeeyay ciidamada booliska Soomaaliya ee barta kontaroolka ku sugnaa iyo kooxda weerarka soo qaaday ayaa waxaa ku dhintay isla markaana ku dhaawacmay dad shacab ahaa oo goobta ka agdhowa. afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar ayaa warbaahinta shir jiraa'id ugu qabtay goobta ay dhacdadani ay ka dhacday, waxaana uu ka warbixiyey qaabka ay u dhacday dhacdadan iyo qarax uu sheegay in ay ka hortageen ciidamada amniga dowladda. saakay abaarihii 9kii subaxnimo kooxaha argagixisada ayaa waxay isku dayeen gaari baraada ah oo madow in ay soo dhaafsiistaan waddo u xirneed ciidamada ammaanka oo xaafad ku tiilay isbitaalka Suudaaneeska dhinaceeda. runtii waddadaas way xirneed si qarjajeex ay rabeen inay ku soo dhaafaan. ciidamada ammaanka ayaa ka war helay, waxaana ammaantaasi mudan shacabka magaalada Muqdisho iyagu si dhow ula shaqeeya laamaha kala gedisan ee ammaanka, isla markaana ku wargeliyey in gaari baraada madow noocaasi ah uu doonayo inuu isku maro waddadaasi oo xirneed, isla markaana ciidamada ammaanka ee goobtaasi soo gaareen. gaarigaasna isku dayeen inay istaajiyaan, rasaasna ay markaasi dhex martay, kadibna ay ciidamada ammaanka ku guulaysteen iyagoo shacabkii badbaadinaya inay goobtaasi ay ka nadiifiyaan shacabkii. inta ay ku mashquulsanaayeenna gaarigii oo halkaasi ku qarxay. halkaasi waxaa ku dhaawacmay ilaa iyo 4 askari oo iyagu ka hortagayay inay badbaadiyaan shacabka magaalada Muqdisho ku dhaqan, isla markaasna kooxahaas argagixisada la dagaalamay ee fashiliyay dhibaatadii ay la damacsanaayeen shacabka. sidoo kale abaarihii 11kii ayaa kooxaha argagixisada iyagoo iska soo dhigay ciidan waxay damceen inay soo dhaafaan jagboontigan ee Saybiyaano iyagoo isku ekaysiinaya ciidamada militariga, tuutihii militarigana watay. ciidamada booliska ee jagboontiga joogay ayaa iyaguna ka hortagay oo la dagaalamay. halkaasna waxay ku dileen kooxihii nabaddiidka ah ee hadda u jeedeen inay halkaan meedkooda yaalaan, hubkii ay wateenna ay kaga qabteen. sidoo kale waxaa halkaan ku dhaawacmay ciidan kale iyo shacab. waxaa sidoo kale dhibaatay ka soo gaartay shacab oo ku dhintay, waxaana kaga dhintay ciidamada booliska 1 qofood. tirada marka ciidamada dhaawacantay labada dhacdo ee maanta dhacday waa ilaa iyo 6 ciidan, 1 askarina waa uu kaga geeriyooday. Allah u naxariisto. Cumar Maxamed Somane, Universal TV, Muqdisho.